si fiican u fiirsan muuqaalkan. ninkan dhalinyarada aad u jeedaan kaamirada korkor ayuu u fiirinaa. halkan inay kaamira ku jirto wuu u jeedaa, macnaha cabsi ma jirto. wejigiisa in la heli doono shaki kama qabo. laakiin isaga waxa iiga daran marka ninkan go'aansaday mobilka halkan yaala inuu qaatay, isaga waxa ka daran eeg inta qof oo halkan joogto. koox rag iyo dumar, ninkii farmashiga gaday waaba la boojiyeyba. laakiin kooxdan kale iyagu maxaa ku dhacay? ma arki karaa ninkan xariiftinimada sameynaya. halkan waa magaalada Muqdisho. ma waxbuu akhristay? ma dadku dhan uu taagay? mise xirfad ayay u tahay oo weliba si heer sare ah isagu kaliya ugu takhasusayba? waa soo qaban karnaa ninkan, waa la soo qaban karaa, gacanta lagu soo dhigi karaa, booliskana waa loo fududeyn karaa. weliba igala qayb qaada baahintiisa marka muuqaalkan. ragga noocan oo kalene waa kuwa aan doonayna in magaalada Muqdisho laga sifeeyo. Marwo Fertility Center xarunta ugu fiican daaweynta cudurrada keena dhalmala'aanta rag iyo dumarka. lagu dooro daaweyn qaliin iyo bacriminta IVF. dadka dhibaatada ay ku hayaanna laga qabto, booliska iyo shacabkuna la doonayo inay iskaashadaan. adigu waxba kaama dhibi doono. muuqaalka qabo, la sii wadaag saaxiibadaada kale. halkan waa degmada Xamarweyne oo ka tirsan gobolka Banaadir. si fiican u fiirsan ninkan. caadi wuxuu fuuli doonaa miiska, macnaha labada gacan uu saaranaa, gadgadaalo uu fuulaa, gacanta dambe uu deysana, wuu soo baxsanaa, kadibna dabadeed tartiib uu bixi doonaa. wax cajiiba marka dadka halkan joogo dhan maxaa mashquuliyey? isaga maa taagay? iyaga muu isku mashquuliyey? ninka gadaya farmashiga aaway? isaga waa kaa wuu sii baxay, wuu soo laabtay. dan ninka farmashiga gadaya ninkaana si fudud u qaatay. magaalada Muqdisho marka haddaad Muqdisho joogtid, jeebkaada waxa ku jira in lagaa qaato way fududahay. jeebkaada waxa ku jiro in lala baxo way iska sahlan tahay. ninkan iyo kuwa la midka ah marka ay ku salaamaan, gacantaada soo geliyaan gacantooda, qaarkood indheheba ku qaadanooyinba. taabashada jirka iyo juglis siiyo ayaa sababi karta dadkan qaar sida ay sameeyaanba inay la baxaan wax kasta oo marka aa haysatidba. ninkan waa la soo qaban karaa. halkan waa magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Xamarweyne, meelaan sida ugu fogeen masaajidka Marwaas farmashi ku yaalo. reer Xamarweynena aad ay u isticmaalaan daawooyinka iyo baaritaanada yaryar ee u sameeyo ee dureenka iyo waxyaabahaas oo dhan u qabto. waa farmashi habeen iyo maalin dadkiisu ay mashquulsan yihiin, macaamiishiisuna ay wada yimaadaan. laakiin daaweyntii dadku uu daaweynayay, hawshii gudaha ka socotayba tanaa bedeshay. hawshii gudaha ka socotay tanaa mashquulisay. haddaad joogtid degmada Xamarweyne, ninkan waa aqoonsan kartaa. hadduu dool yahay uu xaafad kale ka yimidna, xaafada kale uu ka yimid dadka degan way aqoonsan karaan. hala soo qabto. muuqaalkayga halkaas ku kooba. si aad u hesho internet xawaare sare leh oo aan kala go' lahayn, dooro isgaarsiinta jiilka cusub ee Somnet Telecom oo hel internetka ugu xawaaraha sarreeya dunida iyo guud ahaan geyga Soomaalida ee 5G internet. si fudud u xulo xirmada internet ee ku habboon baahiyahaaga adigoo garaacaya xidig 540 gees oo ku raaxayso internet xawaare sare leh. Somnet Telecom isgaarsiinta jiilka cusub.